marka koobkii meesha ku qaadnay maasha allah magacii kor ayuu sii qaadmay haddana waxaan ku beeray koox kale ay sii qaadatay oo degan xaafadaha ama xaafadda aan ku barbaaray macnaha maasha allah ayadana sidoo kale aad iyo aad ayaa macnaha meeshaas magacayga kor u sii qaadmay laakiin janis ma ogoleen waalidiinteyda inaan kubadda si ciyaaro macnaha waalidiinta waa ogtihiin qaarkood ma jeclo sportiga dhanba marka naxtooye ayaan ku samey jiray adna waxa waa hubbiga iyo jaceylka ayuu ahaa maasha allah waalidka cabsidiisana waa ugu jirtay marka insha allah taas ayaan horta benta koowaad taas ku beeray waxaan ku beeray haddana naadiga fursad qaali ku helay goolhayihii madbacadda qaranka karaama dhigay kadib markii shaash ciyaaryahanka difaaca qaranka soomaaliyeed oo ku istaagay oo dhaawac gaarsiiyey janiskaas ayaan ka faa'iidaystay inaan marna u galo goolhaye naadiga madbacadda qaranka ama loo yaqaano MPC club aad iyo insha allah markaas kadib bas haddana waa dhoofay qurbaan aaday kadib burburkii kadib haddana waa imid maasha allah de meeshii hubigay ka watay marka ugu dambeyso waxaa imid degmada Baraawe ayaa dib ugu soo noqotay magaalada ku dhashay maasha allah waa gartay marka xilligii haddii aad noo xusto taariikhda aad ku soo biirtay ciyaaraha waa degmada Baraawe soo ma aad iyo maasha allah markaan soo laabtay horta waxaa meesha aan ka damqaday ama ka kulaaday erey la soo dhahay maanta ilaa hadda aan taaganahay ereygaas inaan ka haro aad iyo anoo joogo gobolka Shabeellada Hoose caasimadda marka caday min Cusmaan magaalada madaxda gobolka Shabeellada Hoose markaas ay jirtay meeshaan kubad qofka hebigiis duya meesha laga dheelo boo inuu tagaa sama aad iyo aad si wacan markaan tagay ayaa macnaha khilaaf yar ka dhacay oo laba kooxood oo garsooriye isku haystay markaan tafaasiisha dhiibtay ayaa waxaa leeyahay adiga meeshaad ka timid ayaa ku baahan oo la isku haystaa garsoor la'aan yahay wax walba yahay bas markaan aan ereyga madaxaas ugu dhacay seminaar meesha ka galay seminaarkii qalabkii iyo macnaha iyo buugagtii la soo siiyay Cabdiqani Saciid Carab ayaa watay maasha allah markaas ahaa inuu xogayaha xiriirka kubadda cagta in loo magacaabo in kala mashiin kara laakiin markaas asaas seminaarka bixinaya maamulka maasha allah meesha ka qayb galay waa soo baxay Baraawe imid tababarkiisaan u bilaawday naadiga Cameroon ayaa gacanta ku dhigay oo markaas la yaqiinay naadiga Browniga ay dheeli jireen muddo 20 cisho gudahood ayaan waxaan ku bedelay qaab ay u ciyaari jireen ayaa qaab wanaagsan oo Browniga dhulka in salax la dhigo Browniga dhulka erkaan la geeyay maasha allah marka dambe taa waxa qofkii xasuusto oo joogo way xasuusan karaa waxaan noo imaaday macnaha